بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن إذن أحانتي مداوة ديال كسو دوادا وروحي دافع عالم كنا نسو قاري وادكلا سعوتان janalka gaxliiska wararka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah qarax khasaare geysta oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maamulka Puntland oo amray in gabi ahaanba albaabada la isugu dhufto xafiiska guddiga doorashooyinka qaran qaybta Garowe wariyihii gaarka ee madaxweynaha Puntland oo dib u helay xorriyadiisa kadib markii shalay ay xireen ciidamo ka tirsan booliska Puntland ciidamada militariga Suudaan oo taageeray kulankii dhaxmaray hogaamiyaha dalka Suudaan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha Mareykanka oo si dirqi uga badbaaday xilka qaadis ay la damacsanaayeen inay ku sameeyaan xisbiga dimuqraadiga kadib markii ay mooshin ka keeneen intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu door karoon haatan u diyaar garooba kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay ayaa goor dhaweeda ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan isgoyska Tareex ee degmada Hodan qaraxan ayaa la sheegay in lala eegtay gaari uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogyaal ahaa darawalkii waday gaariga ayaa la sheegay in uu qaraxan ku dhaawacmay sidoo kalena uu burbur xoogan soo gaaray gaariga laamaha amniga Soomaaliya weli faahfaahin kama aysan bixin qaraxan hayeeshee waxa uu ka mid yahay qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhanka kale wariye Cumar Maxamed Soomali oo ahaa saxafi ka tirsan madaxtooyada Puntland isla markaana ahaa wariyaha gaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib u helay xorriyadiisa kadib markii maanta la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ee Puntland Cumar Soomali ayaa lagu soo daayay damaanad sida uu sheegay xeeralaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax kaasoo warbaahinta uga waramay xariga wariyaha iyo damaanada lagu soo daayay xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in muddo 7 cisho gudahooda go'aan looga gaari doono kiiska loo haysto wariye Cumar Soomali una xorriyadiisa dib u haysto intii baaritaankiisa laga dhamaanayo xeer ilaaliyaha wuxuu ka gaabsaday inuu shaaciyo dambiyada loo haysto ama lagu soo oogay Cumar Soomali ururka suxufiyiinta MAB iyo saxafiyiinta ka howlgasha Puntland ayaa kaalin mugle ka qaatay siideesmada wariye Cumar inuu dib u helo xorriyadiisa kadib muddo 24 saac oo ku xirnaa saldhig ku yaala magaalada Garowe ee caasimadda Puntland dhinaca kale shirka golaha wasiirada maamulka Jubbaland oo uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Lugadheere ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka Gedo hanaanka waxbarasho ee dalka iyo qodobo kale kadib doodeer oo ay goluhu yeesheen ayaa waxa ay war-saxaafadeed ka soo saareen fargelin ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ku hayso Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo waxaana ay goluhu sheegeen in si buuxda heegan loo geliyo ciidamada kala gedisan ee Jubbaland markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxa war-saxaafadeedka warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jubbaland injineer Xuseen Sheekh Maxamed maanta oo khamiis wuxuu ahaa shirkii golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland shirkaasi oo uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha ahna ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud waxaa laga hadlay qodobo amniga iyo siyaasadda xaaladda gobolka Gedo hanaanka maamul ee waxbarashada ee dowladda federaalku ay u maamusho qodobadii ugu horeeyay kadib iyo doodihii waxay golaha wasiiradu isla gaareen qodobadan hoos ku qoran kadib markaan marar badan ka soo gudbinay cabashooyin ku aadan faragelinta qaawan ee ay ku hayso dowladda federaalku dowlad goboleedka Jubbaland taasi oo ku gudbinay war-saxaafadeedyadii isdaba joog ahaa ee maxaa la yiraahdaa qoraallo iyo isugu jiray maxaa la yiraahdaa kuwa muuqdaba sidaa darteed dowlad goboleedka Jubbaland waxay si xoog leh u cambaareynaysaa weerarka qaawan ee dowladda federaalku ay ku soo qaaday dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo weerarada qaawan ee sharci darrada ah waxay sababeen khalkhal amni colaad beeleedyo ka dhex abuurmay beelihii walaalnimada ku wada noolaa taasi oo ay sababayso dib u soo celinta dagaaladii sokeeye ee laga soo gudbay qodobka xiga waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ogeysiinaynaa
in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gacmaha ka laabatay la dagaalankii argagixisada ayna caadeysatay burburinta iyo la dagaalanka dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee kula jiray dagaalka ba'an argagixisada. qodobka xiga golaha wuxuu go'aamiyay in si buuxda heegan ay u galaan ciidamada guud ee dowlad goboleedka Jubbaland meel kasta ay joogaan si looga hortago duulamada qaawan ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. qodobka xiga waxaanu cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan beesha caalamka cawaaqib xumada ka timaada dagaalka qaawan ee mas'uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. qodobka xiga kadib markay golaha wasiiradu ka doodeen qodobka waxbarashada waxay go'aamiyeen in qodobka qaabka iyo hanaanka sharci ee federaalku ay u maamusho ay ku maamusho qaab centralized ah ama qaab saddexaa. sidaa darteed waxay soo jeedinayaan golahu inaan la siyaasadaynin adeegyada waxbarashada ee bulshada loo hayo, nidaamka federalismkana lagu soo dabaalo laguna dhaqo si sharciga waafaqsan. dhanka kale dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa amar ku soo saaray in albaabada loo laabo xafiiska guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliya ee uu ku leeyahay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. waraaq ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa lagu faray gudoomiyaha gobolka Nugaal in laga bilaabo maanta albaabada uu u laabo guud ahaan xafiiska guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland lagu amray in guddiga doorashooyinka Soomaaliya uusan wax shaqo ah ka qaban karin deegaanada uu ka arrimiyo Puntland. lama sheegin sababta ka dambeysa in la xiro xafiiska guddiga doorashooyinka. ha yeeshee go-aanka ka soo baxay Puntland ayaa ku soo aadaya kadib markii dhowaan guddiga doorashooyinka uu asteeyay goobaha lagu qaban doono doorashooyinka qof iyo cod ee la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada inay dib u soo cusboonaysiiyaan wada shaqeyntooda iyo waliba iskaashiga dowlad goboleedka iyo beesha caalamka. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in wada shaqeyntaasi ay hore u sii wadi karto in laga gudbo ama laga guuleysto caqabadaha ka imaanaya dhanka shabaab isla markaana horumar iyo barwaaqo shacabka Soomaaliyeed u horseedi karta. Mareykanka waxa uu sii wadi doonaa dadaalada ku aadan dhinacyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Mareykanka ayaa mar kale ku cadeeyay qoraal uu ku aqoonsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaahiye Qorqor oo dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. ciidamada militariga Suudaan ayaa taageeray hogaamiyaha wadanka Suudaan kulankii uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayna ka wada hadleen sidii xiriir dhow ay u yeelan lahaayeen labada dal. hogaamiyaha maamulka Suudaan Jenaraal Cabdifataax al-Burhaan ayaa la kulmay saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada qalabka sida ee wadanka Suudaan kadib markii uu dib ugu soo laabtay dalkiisa. kulanka ayaa waxa uu saraakiisha ciidanka uga warbixiyay wadahadaladii uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu. ha yeeshee kulanka uu la yeeshay Jenaraal Burhaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay inta badan golaha wasiirada xukuumadda cusub ee Suudaan. hogaamiyihii hore ee la afgambiyay Umar al-Bashir ayaa xukuumaddiisa uu hogaaminayay si weyn uga soo horjeeday Israa'iil iyo dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka reer Falastiin. halka aad weli nagala socotaanna waa janaalkeena Gaaxliska wararka oo si toos ah uga dheehanaysaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa si dirqi ah uga badbaaday xilka qaadis ay damacsanaayeen inay ku sameeyaan xisbiga dimuqraadiga kadib markii ay mooshin ka keeneen. madaxweyne Trump ayaa lagu waayay dambiyadii lagu soo eedeeyay iyadoona 52 cod ay u codeeyeen in aanu wax dambi ah galin halka 48 codna ay u codeeyeen inuu dambi galay, taasoo ka dhigaysa inuu 4 cod oo kaliya uu ku badbaaday. arrintan ayaa soo afjartay in uu ka dego madaxweyne Donald Trump culayskii saarnaa bilihii la soo dhaafay, waxaana mooshinka laga keenay uu ahaa mid aad u saameyn badan ama saameeyay xafiiska iyo weliba shacabka Mareykanka.
aqalka sare oo ay ku badan yihiin xisbiga madaxweyne Donald Trump ee jamhuuriga waxa ay u codeeyeen in madaxweynuhu aanu wax dambi ah gelin. xisbiga dimuqraadiga ayaa si weyn u waday olole ka dhan ah madaxweyne Donald Trump inkastoo ay ku guuldareysteen qorshihii ay rabeen inay Trump kaga tuuraan xilka madaxweyne. haddii madaxweyne Trump laga qaadi lahaa waxaa dhici lahayd in madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi uu sii hogaamiyo talada Mareykanka inta laga soo dooran lahaa madaxweyne kale. Donald Trump ayaa mar kale doonaya in uu ku guuleysto doorashada soo socota ee la filayo inay dhacdo sanadkan dabayaaqadiisa, waxaana culayska ka degay ay u sahlaysaa in uu sii wato ololihiisa si uu mar kale ugu guuleysto hogaaminta waddanka Mareykanka. qodobka ayaa ugu dambeeyay war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen channelkeena Gaaxliiska Wararka. warka waxaa idila socodsiinaya anigoo Axmed Laqaaya. tan intaynu dib ugu kulmi doono nabadiino.